السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غيارتها هودا naga daawanaysa ay kulanti wacan oo wanaagsan kuna soo dhawaada daawadayaal war wixii dalka daafaca caalamka inaga soo gaaray oo kala socotaan SBTV qodobada wararkeena ugu door karona waxa kamid ah qaar kamid ah shaqaalihii ku howlana la tacaalida COVID-19 oo ka caawinaya xuquuq la'aan bilooyin ah shir u dhaxeeya madaxtooyada Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada oo isfahan waa ku dhamaaday fanaan cabdi tahliil warsame oo ku geeriyooday Muqdisho wasiiro iyo xildhibaano beelaha hawiye oo isku raacay hal qodob oo adag daawadayaal intaasi waxay ahaayeen warkii oo kooban haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan waa maalinimo Jimcaha 5 bisha 6 2020 ku soo dhawaada warkii oo fidsan Allah u naxariistay fanaanka weyn ee Soomaaliyeed Cabdi Tahliil Warsame ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho kadib muddo uu ku xanuunsanaa magaalada sida ay sheegeen dawladda Soomaaliya geerida Cabdi Tahliil Warsame ayaa waxa qoraal uu soo saaray barta Twitter-ka ku xaqiijiyay afhayeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Ismaaciil Oranjo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hadda la xaqiijiyay inuu magaalada Muqdisho ku geeriyooday fanaanka caanka Cabdi Tahliil Warsame oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanaa magaalada Muqdisho ayuu yiri afhayeenka qaar kamid ah shaqaalihii gurmadka ahaa ee qayb ka qaadanayay la tacaalida cudurka faafa ee coronavirus ayaa ka cabanaya xuquuq la'aan muddo bilooyin ah shaqaalahan oo la soo xiriiray warbaahinta ayaa sheegay in aysan mushaar helin muddo 2 bilood ah dadka qaarkoodna ay qaataan bil kasta loo qoondeeyay shaqaalaha cawanaya oo ka koobnaa 25 qof ayaa ahaa kuwii qaabilsanaa aaska dadka u dhinta cudurkan dhaqida meydadka doonida ama soo qaadida dadka cudurka looga shakiyo iyo soo waca nambarka gaawan halka qaarkoodna ay u qaabilsanaayeen in oksijiinta dadka ku xiran madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariin mahadcelin ah u diray dawladda Iran kadib markii ay isweydaarsadeen 2 maxbuus oo siyaabo kala duwan labada wadan ugu kala xirnaa dawladda Islaamiga ee Iran waxay sii deysay askari ka tirsan ciidamada badda Mareykanka halka USA-na xabsiga ka sii deysay saynisyahan reer Iran ah oo loo haystay kiis gaar ah arintani waxay cadeynaysaa inay labada wadan ee khilaafka ba'an uu ka dhaxeeyay sanadihii dambe ay meel mariyeen heshiiskoodii ku aadanaa isweydaarsiga maxaabiista Suraj askari oo ah saynisyahan reer Iran ah isla markaana ku eedeysnaa inuu qalab ka xaday jaamacad ku taala wadanka Mareykanka ayaa la sii daayay sidoo kale waxay Iran sii deysay Machil White oo sanadii 2008 ay ka qabteen magaalada Mashhad inkastoo aan la shaacin sababta loo xiray wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Javad Sharif ayaa soo dhaweeyay siideynta saynisyahanka dalka Trump oo barta Twitter-ka ku soo qoray qoraal oo arrinkan ku xaqiijinayo waxaan telefoonka kula xiriiray lahaystii hore ee Mareykanka Machil White kaas oo hadda ku sugan Suraj kadib markii ay sii deysay Iran wuxuu diyaarad ku imaan doonaa USA waqti dhow gurigiisa ayuuna ku soo laaban doonaa ayuu Trump soo qoray xeer ilaalinta gobolka Minnesota ayaa dacwad ku soo oogtay 3 askari oo weheliyay askarigii cadaanka ahaa ee lagu eedeeyay inuu dilay George Floyd oo ahaa nin ka soo jeeda bulshada madowga ee Mareykanka xeer ilaalinta ayaa sidoo kale sare u qaaday darajada eeda dilka loo haystay askariga la eedeeyay ee muuqaalo la baahiyay la arkay isaga oo luqunta jilibka kaga haya George Floyd oo dhulka yaala kaasi oo halkaas ku dhintay eeda loo haysto askariga dilka ku eedeysan oo markii hore ahaa darajada 3aad ee dilka ayaa waxaa hadda lagu soo oogay dacwad ah darajada labaad ee dilka ururka Al-Shabaab ayaa si rasmi ah u bilaabay mashruuc ay ugu magac dareen Carabiyeynta dadka Soomaaliyeed mashruucan oo bilooyin ka hor ay ku dhawaaqday Al-Shabaab ayaa hadda waxay kooxdu sheegtay inay soo saartay dufcadii ugu horeysay oo ka qalin jabisay barashada luqadda Carabiga Al-Shabaab ayaa sheegtay in dufcadda ay ka qalin jabisay iskuulka lagu barto luqadda Carabiga oo ay ka furtay magaalada Jilib kaasi oo lagu
lagu magacaabo Al-Xigma. Xafladda qalinjabinta oo u muuqatay mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa ujeedada mashruucan ku sheegtay inay tahay in dadka Soomaaliyeed loo fududeeyo barashada diinta Islaamka. Waxaa burburay shir maalmihii la soo dhaafay dhanka suumka ku dhex maraya wakiilo ka kala socday madaxtooyada Villa Soomaaliya, dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir si looga arinsado goobta iyo ajandayaasha shir lagu wado inuu dhex maro madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Shirkii u dambeeyay ee maanta dhinacyadaasi ku dhex maray suumka ayaa isfaham waa ku dhamaaday kadib markii la isku raaci waayay waqtiga iyo goobta uu shirka ka dhacayo. Waxaana jiray soo jeedin kala duwan oo la xiriira taariikhda shirka dhacaya oo ay kala wateen xubno ka kala socday dowlad goboleedyada oo midba taariikh gaar ah soo bandhigay. Hase ahaatee markii intaasi la isku fahmi waayay ayaa haddana dood kale ka dhalatay in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay isugu yimaadeen shir dhinaca qadka suumka. Waxaana arrintaasi diiday oo ka hor yimid madaxtooyada Soomaaliya iyo maamulkan Koonfur Galbeed. Waxaa horay u jiray in wakiil ka socday Koonfur Galbeed inuu soo jeediyay kulan ay isugu imaanayaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inuu dhaco bartamaha bishii Julaay, halka qaramada midoobay iyo wakiilada kale ee beesha caalamka ay doonayeen inuu shirka u dhaco dhamaadka bisha Juun. Dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa wax shir ah isugu imaan tan iyo bishii May ee sanadkii hore, xilligaas oo madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ku kulmeen magaalada Garowe. Waxaana shirkaasi uu ku dhamaaday burbur kadib markii qodobo dhowr ah la isku mari waayay. Markii ugu horeysay waxaa muuqanaysa in aragti ama hal go'aan ay isku raaceen shacabka iyo siyaasiyiinta magaalada Muqdisho, kaasoo la aaminsan yahay inuu halis weyn abuuri karo. Baraha bulshada ee internetka, warbaahinta iyo goobaha kulanka dadweynaha ayaa ku arkaysa dadka Banaadir dega oo go'aan isku mid ah ka qaatay matalaadda gobolka Banaadir iyo wararka sheegaya in 4.5 lagu qaybsan doono kuraasta ay helaan. Go'aanka ay qaateen ayaa ah Muqdisho lama wada lahan ee waa la wada degan yahay. Sidoo kale waxaa muuqata inay ka siman yihiin aragtida ah in aysan cid aan iyagu ahayn go'aan ka gaari karin matalaadda gobolka Banaadir ee golaha aqalka sare. Aqoon-yahanada, siyaasiyiinta dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wada abaabul ka dhan ah go'aanka guddiga isku dhafka ah ee labada aqal, waxaana socda kulamo isdaba joog ah. Sidoo kale kulamada waxaa qayb ka ah saraakiisha ciidanka, taasoo ka dhigan in dadka u dhashay gobolka Banaadir midoobeen. Dadkan oo noocyo kala duwan isugu jira ayaa u muuqda kuwo u diyaarsan banaanbaxyo ka dhan ah dowladda iyo kacdoon dadweyne si loo muujiyo rabitaankooda ku aadan tallaabada gobolka Banaadir. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa shalay sheegay in kacdoonkan uu sababi karo qorshaha ka soo baxay guddiga wadajirka ah ee ku saabsan matalaadda gobolka Banaadir. Sidoo kale baraha bulshada ku kulmaan ayaa waxaa ka socda dagaal xoog leh iyo weeraro lagu qaadayo guddiga warkaan soo saaray. Haddii aan arrinkan wax laga bedelin ayaa waxaa laga cabsi qabaa in kacdoon ka dhan ah dowladda ka bilowdo Muqdisho, kaasoo khatar ku ah dowladda Soomaaliya oo Muqdisho kaliya awood ku leh ayna suurtagal. Ciidamada dowladda caalamka u aqoonsan yahay ee Liibiya ayaa maanta dib u qabsaday magaalada Tirana ee ku taala koonfurta bari ee magaalada caasimadda ah ee Tripoli, taasi oo Genaraal Khalifa Haftar ka saaraysa halkii ugu xooganeed ee ugu dambeysay ee uu kaga sugnaa galbeedka Liibiya. Tirana waxay ahayd magaalada uu Khalifa Haftar ka soo qaadayay weeraradii socday 14 bilood ee uu doonayay inuu ku qabsado Tripoli. Wali ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Khalifa Haftar iyo ciidankiisa oo ku aadan ka bixitaankooda magaalada, taasi oo timid maalin kadib markii laga riixay goobihii ugu dambeeyay ee ay ku sugnaayeen caasimadda. Ciidamada dowladda ayaa sidoo kale Arbacadii dib u qabsaday garoonka weyn ee diyaaradaha ee magaalada Tripoli, taasi oo magaalada caasimadda ka wada saarta ciidamada Genaraal Khalifa Haftar. Dagaalka Liibiya ayaa weli fari ka qodanayn maadaama ciidamada Khalifa ay maamulaan bariga
bariga dalkaas oo ay ka dhiseen dowlad kale iyo koonfurta dalka oo ah halka ay ku yaalaan goobaha saliidda laga soo saaro. Haftar ayaa bishii Abriil ee 2019 bilaaway weerar uu doonayo inuu ku qabsado caasimadda Liibiya, hase yeeshee waxaa birihii hakiyay faragelinta ay Turkiga ku sameeyeen dalkaas ayaga oo taageeraya ciidamada dowladda. Khalifa Haftar ayaa waxaa taageera Masar, Imaaraadka Carabta iyo Ruushka, halka dowladda ay gacan ka helayso Turkiga iyo Qatar. Ciidanka xoogga dalka sareeya guuta Odawa Yuusuf Raage oo ku jira safar uu ku marayo xarumaha ciidanka ayaa dhagax dhigay qaybo ka mid ah dhismaha xarunta taliska guud ee qaybta 21aad oo fadhigeedu yahay magaalada Dhuusamareeb. Taliyaha qaybta 21aad Jenaraal Cabdicasiis Cabdilaahi Cabdi Qooje iyo taliyaha guutada 15aad Jenaraal Mascuud Maxamed Warsame ayaa ka qayb galay munaasabadda dhagax dhigga guriga taliyaha qaybta iyo kan taliye xigeenka oo ka mid ah dhismayaashii ugu muhiimsanaa taliska qaybta. Hirgelinta qaybahan cusub ee ku biiraya xarumaha shaqaynaya ee qaybta ayaa ahmiyad gaar u leh taliska, waxaana dib u dhigista qaybahan muhiimka ah xarunta qaybta 21aad ka mahadceliyay taliyaha qaybta Jenaraal Cabdicasiis Cabdulaahi Qooje. Gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geeda Korow ayaa ballan qaaday ka maamul ahaan inay gacan ku siin doonaan ciidamada xoogga dalka dhismaha xarumahan. Waxa uuna digniin u diray dad isku daya in ay degaan xarumaha ciidamada. Taliyaha ciidamada xoogga sareeya guuta Odawa Yuusuf Raage oo ka hadlay muhiimadda xeryaha ciidamada xoogga ee ku yaala magaalada Dhuusamareeb ayaa ballan qaaday in dhismaha xarumaha cusub uu bilow u noqonayo in dib loo wada dhiso guud ahaan xeryaha kale. Xarunta taliska qaybta 21aad ee magaalada Dhuusamareeb oo horay dayactir iyo dib u dhis loogu sameeyay ayaa kadib dhismaha guryaha cusub ee gudbi doona dib u soo celinta xeryaha kale ee burbursan iyo kuwa ku jira gacmaha aan ahayn kuwa xoog. Waxaana dhagax dhigan kadib taliyaha xoogga uu kormeerayay qaar ka mid ah xeryaha kale. Waa hagaag daawadayaal wixii war dalka daafaha caalamka aan idinkaga soo jeedinaynay aad ka daawanayseen TV-ga SB waa inaga intaas tan iyo kulan dambe sidaas nabadgelyo. Waxaa warka idinla socodsiinaya anigoo ah Yaasmiin Maxamed Muuse iyo wariyaheena Ikraan Jaamac Maxamuud. Tan iyo kulan dambe sidaas nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.